الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي كوبية طمنات كتاب كيني حكم وفوائد من الروائع على الإمام ابن القيم رحمه الله. أثر المعاصي. من عقوبات المعاصي أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة. macaasida horeyna waynu uga hadalnay oo mar baan ka soo sheekaynay. macaasida cuquubada ka dhalata waxaa ka mid a in barakada cimrigaaga in barakada laga qaado, risqigaaga in barakada laga qaado, arsaaqdaada, cilmigaaga in barakada laga qaado, camalkana barakada laga qaado, daacada barakada laga qaado. kitaabka sheekhu wuxuu ku sheegay kitaabkiisii addaa waddawaa wa jumlatu lmacaasi. macaasidu waxyaabaha aharkay reebto ayay ka mid tahay. tawaaducu lcabdi lirabbih. wayanbagii lilcabdi an yastaciida billahi an yakuuna cinda nafsihi cadiiman wahuwa cinda allahi xaqiir. subxaana allah. waxaa ka mid a fawaa'idda sheekhu noo soo guuriyey. waxaa habboon buu yidhi wayanbagii lilcabdi, addoonka waxaa u habboon inuu allah ka magan galo in isaga naftiisa uu u arko qof weyn oo muhim ahoo darajo sare jooga inuu yahay, laakiin ilaahay agtiisa uu xaqiir yahay. ilaahay agtiisa waad ku liidataa, adiga iyo rabbi baana is-og acmaashaada iyo qalbigaaga iyo waxyaabaha hoos kuu qarsoon, laakiin ummaddu waxay ku moodaysaa qof weyn, ama adigaaba waxaad isu aragtaa qof sharaf leh inaad tahay. macluumadaa sheekhu wuxuu ku sheegay kitaabkiisa jalaa'u lafhaam fii fadli asalaati wassalaami calaa khayri alanaam. runtii waa kitaab aada iyo aada u qiimo badan oo sheekhu uu kaga hadlayo waxyaabo badan, 40 faa'iido. kitaabku wuxuu ku saabsan yahay rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam ee lagu salinayo iyo oo maaragtay salliga rasuulka. 40 faa'iido ayuuna soo ururinayaa oo ku jirta salliga rasuulka sala allahu calayhi waaalihi wasalam. ayib, tamadud lisaan. إذا صارت المعاصي اللسانية معتادة للعبد فإنه يعز عليه الصبر عنها. haddii ay noqoto macaasida qofka afka uu ka yidhaahdo, macsiyada afka aad ka leedahay hadday tahay mid aad ka caado dhigatay oo marnaba aadan joojin karaynin, waxaa xitaa kugu adkaanaya inaad dayso ood ka sabirtaay dhib bay kugu noqon. wuxuu sheekhu ku sheegay kitaabkiisii cuddatu saabiriin wa dakhiiratu shaakiriin. marka macaasida afku hadduu barto, waxaad barataa waa baaskaa baa la yidhaahdaa. dadka qaar baa iska badii ah oo af dheer, oo ummadda ilaahay ayna ka badbaadin, oo ummadda ilaahay wada caayaya, oo xamanaya, oo isku diraya, oo xumaan ka sheegaya. bal idinku hal mar fiiriya maanta waxaa ka socda facebooka iyo snapchatka iyo qashinkan, waxyaabahan ummaddii halaagay. dad waaweyn oo isu soo dhar dhigtay, qabaa'il badan ee dhan oon waxba laga reebaynin, ummad dhan oon waxba laga reebaynin, afkaaga wixii ku soo dhaca oo laga xishoon jiro oon laga xishoonaynin. subxaana allah. rasuulku sala alla alay slam xadiidkiisii waxaa ka mid ah idaa lam tastaxyi fasnac maa shit. haddaadan xishoonaynin waxaad rabta sheeg. taas micnaheedu ma aha in laguu fasaxay, waa sida adiguba aad tirahdo markaad ilmahaaga iyo amri, bal waxaa samee haddaad rabto waxaa samee, adigoo raba inaad ka celiso oo uusan qofkaasi arrintaa u dhaqaaqin. marka afku hadduu furnaado, waxa ugu badan oo dadka geliya naarta na waxaa weeyaan afkiisa iyo farjigiisa. labadaa shay ayaa geliya. rasuulku waa kii damaan yidhi, waa waxa la yidhaahdaa car yaa sidaa yeelo oo kale, horaysi baa la yidhaahdaa. cari man yadmanu lii maa bayna laxyayhi wamaa bayna
fakhidayhi admanu lahu ljanna. waa kii xadiidkiisii ahaa sala allahu caley wasalam. yaa ii damaanad qaadi kara labadan lafood ee garhka oo qeybta kore iyo qeybta hoose waxa ku dhex jira waa carabka, iyo labada bowdo waxa ku dhex jiro oo ah xubinka taranka, labadaa inuusan xumaan ku samaynaynin. aniguna waxaan u ballan qaadayaa buu rasuulku sala allahu caleyhi wasalame, janno ayaan u ballan qaadaya. waa garanti waxaa la yidhahdaa waa wax hubaal ah oo la hubo weeye arrintaas inay dhacayso haddii uu qofku intaa kasoo baxo. laakiin su-aashu waxaa weeye yaa kasoo baxaya? ma jirtaa hal maalin oo waagu beriyo ood ummadda ilaahay magan geliso ood dhaafto oo afkaaga aan kasoo bixin xumaan? marka ilaahay subxaanahu watacaala hayna xifdiyo. waxaa dadka halaagay ugu badan haadaa awradani lmawaarid bay odhan jireen dadkii salafka, abubakar iyo keyrkii. carabka intay saa u qabtaan baa waxay odhan jireen kanaa meel walba i gelinaya, kanaa meel walba igu aroorinaya. ilaahay subxaanahu watacaala carabkeenna ha xifdiyo, allana hayna dhowro subxaanahu, iyo jawaarixdaba alla haynoo ilaaliyo. wajazaakum allah khayr, baarak allah fiik.